السلام عليكم walaalahay waa idin wada salaamay meel kasta adduunka joogtaan sabaax nuur sabaax alkhayr saaka subaxay waxaa waaye bibiga yar ayaa waxaan usii wadaa xanaanada soo xanaanada markaa ka imaado insha allah meeshaan big ayaan soo dheh waxaan rabaa bibida kale inta ii jiifto oo inta yar aan waqtiga ii haysto cunuga markii aan xanaanada iska geey inaan hoosh yar iska kala boobsiiyo meeshaan waxaa waaye fadhigu ii hagaajisan yahay hoover iyo waxba uma baahna in aan xaaqo soo marka waa kala tutuusin oo kale barkimanka iyo waxa ayaan ku kala tutuusin waxa waa jajafaa waxaan rabaa wax yar inaan sii taago mugdi waayo weli subax waaga si fiican ma uusan noogu barin anagana xilliga barafka lagu jira xilliga barafka iftiin badan guryaha ma soo galaayo darashada ayaan waxaan sameeyay ayaan xogaha feeday kadibna waxaan aruurinay wixii alaab ahaay markii xanaanada cunuga u wadaayay dharka meeshii aan kaga bedelay kareenka umari waxaas oo dhan ayaan iska qaaday haddana miiska sidiisa ayaa xag u dhigay sababtoo ah miiska waxaan u jiidaa oo xagga darashada agteeda u dhigtaa waxay tahay gabadheeda yar gurguurasho iyo waxay ku jirtaa istaag ayay baranaysaa hadda waa 8 bilood ayay galaysaa insha allah soo marka waxaa isdhahay miiska hadhow haddii kaleeto inta ku istaag maagto ama meelaha ku dhubsataa soo free cunugan free la siiyo fiicantaa meel loo baneeyo wax sharaxaadaada iyo miiskaaga oo soo yacni waqti alaal waqti asdhiis leeyahay hadda ku haboonto waa ku soo ceshan kartaa marka muhiimadu waa ilmaha sidaas ayaan ugu soo dhamaaday fadhigeen maasha Allah tabaaraka Allah waa soo kaltoosin waxba uma baahnayn dirishada u soo furanay inuu leersanaa kadib meeshan waxaan soo galay jikada soo galay ayadana sidoo kale quraacdii aan ku boobsiyay saakay masaasadii cunugta labadoo saxan oo xali looga hoyday oo kaleeto ayaan rabaa in asagan dhagdhag aan ka siiyo wax walba meeshiisa ayaan kala ginayaa howsha waxaan isleeyahay intaysan kugu soo kicin gabadh yar sheegay inaan iska kala tuuro si aanan waqti u helo iyadana waqti aan ugu helo hadhowna wiilkayga yar aan xanaanada uga doonta meesha aan geystay waxaan doontaa 2 duhurnimo camal ayaan ka doonaa soo intaas waqti inaan nafteyda la qaato gabadheeda yartana aan waqti la qaato ayaan jeclahay soo intay soo kicin ka hor ayaan waxaan jeclahay inaan iska kala tuuro howsha yarta ii taalo ugu dambeyn waxaa waaye waxaan rabaa ofin korkiisa sakinta yar aan haystaa waxyaabihii kaaga dadaatay oo kale mishaarida waxyaabahaas oo kale cuntada marka aad ku karinayso looga fujiyaa aad iyo aad ayuu u fududahay marka waxaa ka heli kartaa dukaanka la dhahay Bauhauska meelaha dhowr mar waan soo dhigay anigoo sameynayo insha Allah sakin yar afka wadataa marka waxyaabaha dhan ay ku fududeynaysaa soo mashiinka waxaan kusoo gurayaa alaabta 4 xabo alaab Itaali darbiyada dhan ayaan gacanta iska marinayaa dhag kaal iska argan faantay muuqaalka gadaal ayaan cod ka saaray haddii aad maqashaan codka bibiga karaal noqdo insha Allah ilmahagana oo helaysaa waqti insha Allah stressna iskugu murido howsha yani darteeda soo sidaas marka ala howshan ku soo dhaweysan maasha Allah tabaaraka Allah meeshan waxaan rabaa bibida yar vaalinka baakadiisa ay u eg tahay inaan wixii u baahnayd oo dhan dhag inaad soo dhigto meeshan waxaan idil wadaagaya waxa waaye vaalin ayaan ku haystaa hofre yani waxa ka samaysan waa qamadii 6 bilood waaye loogu talagalay yani bilash meesha ku qorantaa sanad 6 bilood ilaa 3 sano loogu talagalay soo bilaa sokor waaye ilmaha waxay ka helayaan yan waxa waaye birta ayaa loo yani ka helayaan caruurta soo biyo ugu qas insha Allah caanaha ku qasina waayo caanaha marka aad ku qasto iyo marka biyaha ku qasto way kala fiican tahay lafaana aad iyo aad ay ugu fiican yahay vaaninka aniga gabadheedu waxay cabtaa caanaha sembarka ayay cabtaa waayo naan kuwa lahayna way jiraan iyagana sidoo kale calool adeeg ayay ku qabtaa sembarka ayaan baroobeeyay insha Allah soo meesha caana qandac ayaan ku soo qastay kareemka ayaan soo qaatay xafaayadii wixii oo dhan ayaan soo diyaarsanayaa si oo gabadha marka ii soo kacdo يعني هوش دك يوضع إذا وقت أنا لقاته أنا نفتيد عن وقت لقاته إن شاء الله كرين كان سنة وحوا حلي قبوبها الماء وجناني وجي كيسيس وكل قليل سائد أنا المي ما شاء الله تبارك الله حلي قبوب وحوا وجي وحب كانوا قناع كك من مذوع عمل يا كفولا ممكن أختار كذا لو ذاك إن شاء الله ويدي وحيابها خوف في عن وحيابها الماء في عن إكسام كوكلات يا لو تلقلي
soo indhahan waa ina laga ilaaliyaa cunuga indhaha ina uga ilaalisaa meesha waxaan soo saartay mishaari yar qorfa ayaan kusoo darsaday kadibna saas ayaan usoo diyaarsaday maasha Allah tabaarakallah labadan bir waxaan ku jiraa miisaan dhimis ayaa ku jiraa insha Allah waxaan rajeynayaa ilaahay inuu ila garab galo waayo waxaan dareemay in oo hilib koray hilibkan ma fiicno waxyaabo badan yani labisko ayuu ka xumeynaya adiga ahaan caafimaad ahaan kuma fiicno waxa dareemaysaa culays ayaa dareemaysaa waayo caatada saaidkane ma fiicno waayo waa caata ahaan waa soo maray cayilka saaidka ahna ma fiicno cayil waa arka wuxuu yahay asagana sidoo kaleeto soo meel dhexaad ina ahaato miisaankaaga wixii ku qalma ayaa aad iyo aad u wanaagsan meesha waxaan soo qaatay laba shaf oo doorada oo aan soo qaatay waxaan rabaa 2 maalin cuntadood in aan sameysto soo haddii aad isticmaali karto insha Allah saliida qumbaha ama saliida yani olive isticmaal insha Allah saas ayaa ku wanaagsan saliidan ha iska badinina marka taa hooyo wuxuu ku fiican tahay hooyo caafimaad qabta jirkeeda tamaam yahay maskaxdeeda tamaam tahay ayaa ciyaal korsan karto 2 maalin cuntadood ayaa halkaas ku soo diyaarsaday familka cuntadooda in lagu safaado ma insha Allah haddii aad go'aan gaartay noqo hooyo go'aan gaartay miisaankana iska dhimi karto waxaan leeyahay muuqaalka xiga khayr iyo caafimaad iyo bashbashi barwaaqo